بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلامة الإسلام كدب وحان كلمة دير ما أنت إنه الصحافة دا إسكوبان فعلينه ويلي كجاب شيء ما أنت واحد يقول كلفينان كلمة دير كإراهبه حالبان يوتيوب waxaan ka dhageystay nin odaya oo xildhibaan ah oo golaha iyaga ah oo ka hadlaya xildhibaan maxamed axmed maxamed dhakool waxaa lay ka hadlaya arrin ka dhacay tuulo xagga laascaanood ka xigtay kala baydh la yiraahdo oo deegaanka uu ka soo jeedo ah arrin ka dhacday oo deefool xumeyd oo dad ku dhintay ilaa afar qof ku dhimatay waxna ku dhaawacmeen khasaare kale ka soo gaaray dagaal halkaas ku dhaxmaray ciidanka Soomaaliland ka mid ah iyo shacabka halka deganaa dabeedna khasaarahaas uu ka yimi isagoo ka warramaya waxbuu ku daray marka warkaa arrinkaada waa arrin la iska wada ogyahay وخسارة أمد السوق علي هذا بقى قفكي مقلب وقحون يحي وحيد انتنا الله نحرسته وحب كنا وعملنا إلهي جاي ها عافي مادي وحي خسارة كد عينا الدولة بيقولنا هايو ميل بالصاري دونا كيس كانوا قال له قلت شرايو باريتان يعدي مسؤولية ده هاي بقى عنتكو هاي صدق waxaan sida ugu maqaala ana waa xidhan yihiin dadkii qaar nimankii ciidamadii saraakiisha ciidamada watay kolba cid baa ka waa xidhan yahay ninkii ciidanka watay ciidanka meesha tagay ciidan kale oo qaranku leeyahayna way joogeen meesha baa la yiri waa xidhan yahay baa la baarisina waa socotaa dawladda gacanta ku haysa xukuumadda gacanta ku haysa xukuumadda waa shaqadeedii xildhibaan kuwa ka warramay okay ha ka warramo warkaas waxba waa okay waana deegaankiisii waana xildhibaan golaha wakiilada ah mas'uuliyad waa ka saaran tahay inuu ummadda uga warramo xaaladdu say tahay si fiican waa uga warbixiyay iyo inay ilaa hadda meel fiican marayso laakiin odag waxbuu ku laray warkaa aan aad iyo aad u fahmi waayay oo aan foolxun wuxuu ku labay odag dhakool wuxuu ku labay warbixinta arinta maag uu cid maagayo adigoo wax guud iyo arin dhacday ama wax qaran ka sheekaynaya oo ummadda uga warramaya hadaa wax ku laaqdidna waa mushkilo weey wax la isku lamaanayo odag wuxuu ku lamaaniyay wuxuu aflagaada u geystay qaawan wasiirka gaashaandhigga Axmed Xaaji Cali Cadami أحمد حاج على عظمنا سوماليلاند واتقان وأن أضيع سوماليلاند إلى أساس كي سوماليلاند رجي نبضين تكسو قيب قلي رجي اسمها الدولة إلى هالكاسو قارسية رجي إلى حكومة جوهرية كقيب قلي وسيلنا كسو قبطي رجي أنت صوت دور شكو مش كقبطي وإنك ما لحظة أوها إلى حل قاسو محل من دو بحل هي أنت محين بقى oday Soomaaliland buu ahaa iyo mas'uul Soomaaliland waa la yaqaan waa wasiirka gaashaandhigga hadda xaaladan meesha ka dhacday maadaama wasiirka gaashaandhigga yahay way khusay saabadii anigu warbixinta uu jeediyay wala arki doonaayo anigu goob joog ma ahayn odaygu wuxuu aflagaada u geystay wasiirka gaashaandhigga wuxuu yiri nin wax ogba ma aha wuxuu kaloo yiri waa marfuuc alqalam oo wuxuu yiri waa odag waa gaboobayo gabow baa jira oo mar haddii gabowna jiro iyadoo waxay leedahay xaaladeeda gabow baa jira xaaladeeda leedahay waxa weeye waa nin marfuuc alqalam ah weeye macnuhu waa nin aan yani ibira macnuhu waa sidaa mar hadduu yiraahdo gabow baa jira oo wax ka soo qaad male wuxuu ku hadlay arrintaas baan aad iyo aad ula yaabay wasiirkii lamaan hadal oo maba waraysan waa xalay baan YouTube-ka saa uga daawaday
arrinkaas ana aad ula yaabay waxaan leeyahay xildhibaan dhakool meel ka dhac baad samaysay odaygaa wasiirka ana meel baad kaga dhacday waxaa dowladdu u qaybsantay 3 waaxood waaxda xeer dejinta tanfulinta iyo garsoorka waa wasiirkii gaashaandhigga arrintu waa qusaysay wasiirro kale oo nabadgelyada qusaysana waa jiraan madaxweynaa jira madaxweyne ku-xigeen baa jira wuxuu odaygu sameeyey arrintaa markuu ka warramayey wuxuu kala qaaday wasaaraddii gaashaandhigga iyo ciidankii qaranka dhakool waa ammaanay wasaaradda gaashaandhiggana wuu eedeeyey horta wasaaradda gaashaandhigga iyo ciidanka qaranku waxba ha kala qaadin waa isku mid waa isku shaqo riboodku wasiirka gaashaandhiggu wuxuu ribood yacni dheeli riboodka ka qaataa taliyaha ciidanka baa subax walba u soo gudbiya riboodku u soo gudbiyuba wasiirkuna gudbiyaa oo madaxweynaha u gudbiyaa ama haddii yacni war saxaafadeed loo baahayo ummadda loo sheego uu uga warramaa horta waxba ha kala qaadin waa isku shaqo hawshana gacantay ku wada hayaan ilaahay si khayr inaan ku dhamaatana waa dooni baan ilaahay ka rajaynaynaa laakiin adigu aflagaadada aad odaga u geysatay waa meel ka dhac bay adiga kugu tahay oo ummadda ku tahay oo wasiirka ku tahay xildhibaan baa tahay in la kala xishoodaa wanaagsan haddii mas-uuliyiinta qaranku ay kala xishoon waayaanna dee meesha qarannimo ma jirto oo la is aflagaadeeyo mid kalena waan kuugu darayaa dhakoolo adiga markii horeba isqabsiga iyo rabshadaadu waxay ku ekayd dhulbahante dhexdiisa mas-uuliyiinta dhulbahante baad maalin walba mid isaysatiin oo ilaa hadda maalin walba mid isaysataan ma ummaddii kalena miyaad u soo gudubtay yaa ummaddii kalena xaggana ma u soo tallowday waxaan ku leeyahay waxaa layidhi duqsigu wuxuu ku dabaal bartaa biyaha iyo caanaha iyo hadhowna wuxuu ku gubtaa shaaha kulul ha ku guban ha u soo gudbin iskaga ekow dhulbahante dhexdiisa iyo madaxda dhulbahante qabqabsiga maalin walba aad mid isaysataan oo maalin walba mid aad daba joogto maalin walba mid aad eedaynayso oo maalin walba mid aad dacwaynayso abti ku ekow gacli inagu way isnaqaan haddaad ku ekaan weydo dee adigaa og markaa nin durbaantu bay laaq dalbay baa la yidhi anigu waa kaaga digayaa waana akhlaaqda noocaasana looma baahna waan kaaga digayaa 100% taa horena waad ku gardarayd adeer gacal iyo caga dhigo baan ku leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu